maaha markii ugu horeysay ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal iyo dad shacab oo hubaysan ay isku farasaaraan duleedka koonfur bari ee magaalada Boorama arrimahani oo salka ku haya muran dhul saaka subaxii hore ayaa waxa lagu waabariistay dhawaaqa rasaasta oo si xad dhaaf looga maqlayay deegaanka buurta Sheela ee ku yaala bariga koonfur ee magaalada Boorama waxa goobtaasi ku dhaawacmay laba askari halka hal askari oo kale uu geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray halkaasi markii la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Boorama sidoo kale waxa isaguna gacanta lagu soo dhigay mid kamid ah dadkii reydka ahaa ee hubaysnaa oo isaguna dhaawaca iyo waliba saddex qof oo kamid ah dadkaasi sidaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo ay hareer fadhiyaan saraakiisha ammaanka ee gobolka Awdal iyo maayirka degmada Boorama waxaana uu yiri sida tan waxa war lagu soo gaaray ciidamo isku urursaday meel magaalada dusheeda ciidamadaas markii hawlgal ciidanku ugu baxay guddiga nabadgelyada iyo ciidankuba ciidankaas wuxuu rasaasay ciidankii dawladda booliiskii bay rasaas la dhaceen laba nin waa dhaawac booliisi nina uu dhintay hawlgalkaas uu socday waxa la soo qabtay nin dhaawaca oo nimankii dambiilayaasha ahaa iyo saddex bad qaba afartan operation kaas lagu soo qabtay operation kaasu kulli dabada wuxuu ku hayaa dhul iyo waxyaabo caynkaas kadib markii la soo sheegay ciidanka ku baxay khasaare dhacayna intaas uu noqday hawlgalkaasuna uu socdaa wixii ka soo kordhana waa lagu jiray intii baxsatay dib ayaanu idinka soo sheegi doonaa isku soo duubay la hadda waxa lagu la tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Boorama dhaawaca labada askari iyo waliba halka qof ee isagu reydka ah ee kamid ah dadka hubaysnaa ee halkaasi ku dagaalamay